waxaan u maleeyaa 2 bilood laga joogaa maalinkii barqad aan isbaranay aqoon hore usuma lahayn telefoonaan ku wada hadalnay kadib ramadaankii waan maalin wada afurnay isaga cusmaad lahaa anoo jigjiga ka yimid waa wada afurnay horta maalinkaas aan ka dhargay intaan afurka la gaarin iyo wixii ka dambeeyayba kadib waa kaan go'aansanay annagoo koox ah inaan barqad taageerno dad badan oo xildhibaanada nala soo xiriirayay oo dhahayay de sawiradiina laakiin isaga special case aan u sameynay sababtan ugu sameynay kulli waa garan kartaan taasna shuruucda saxaafadda dabcan way ogashay in wax gooni ah dad lagu gooni yeelay inaad u istaagto saxaafadduna mar bay qareenan noqotaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee saxaafadda inay bedeshana waa halhayska waxa naaday ee suuqa galay iile inuusan gaboose ka duwaneen waxa kale uga duwan yahay ay tahay xirfadaas ninkana strategist yahay ninkana dhakhtar yahay marka horta fikirka ah inaan wiilkan dhisno wuxuu ahaa fikir ku yimid talaabadii noocaas ahayd hal eray aan rabaa inuu iga haro barqad xildhibaan buu noqday laakiin waxa rumoobay ma ahan barqad reerihii uu ka dhashay lama taageeri jirin iyo siyaasad kuma jirin waxaa rumoobay dhinaca kalena ka beenoobay wixii laandheere la oran jiray anu reer baan ka dhashay iila reer buu ka dhashay gaboose reer buu ka dhashay waana isnaqaanaa awiyadeenna iyo abtirkeenna waa kan la yidhaahdo reer hebel way ka badan yihiin reer hebel iyadoon madax tirsi la samaynin waxaan la eegay cabdisaaq tosh imise wiil baa la dhalatay cabdisaaq aabiis imisaa la dhalatay wiilkayga imisuu dhalay kaasa abtir noqonaya marka laakiin sida aan rabo inaan u farsameeyo halhayskan narrative-ka waxa weeyaan kii laandheeraha sheeganayay ee barqad reerkiisa inay ka badan yihiin sheeganayay 3600 maanta baarlamaanka ku fadhiyaa isna 20,000 ku fadhiyaa marka kee laandheera ah marka laandheeranimada saxda waa tan rabitaanka ah ogow kuwa u codeeyna la abtir ma ahan inay aad u yarihiin laga yaabaa anigu la abtir mi laakiin waxba karaamadiisa iyo qalbigiisa iyo qushuuc iyo rabitaan dhankayga ka yimid ba marka laandheeranimadu waa cod laandheeranimadu abtir ma ahan ereygaasaan rabaa inaan dadka oga tago waa cod saaxiibkay yaan halkaa oga jeeda waxa laga yaabaa maanta inta berbera oga codeyn lahayd inuusan gaari lahayn marka laandheernimadu waa cod iyo rabitaan hal qof oo la qasbayna ma jirin qofka markuu warqadda ballot paperka soo qaado ee uu safka galo waxbaa qaadaya waxbaa qofkan ku dhiirigelinayay aad baan u mahadsantihiin dhalinyarada saaxiibadeeda ee wariyaasha mihnadan saxaafadda igula jira dalka iyo dadka iyo dhul walbo aad joogtaan iyo deegaan walbo aad ku sugan tihiin qaab fikirkooda waad bedeli kartaan sida loo bedelayba 20,000 ee ninkaa dooratay intaas ayaan rabaa mihnada shaqada yeesan ku ekaanin qalin ee warqad iyo microphone loo dhigo siyaasi waxbaad bedeli kartaa 78 postaan geliyay 31 December May bay doorashada dhacday 29 imid 30kii 31kii 1dii 2dii 78 video 31 kamid ah isaga lahaa maalinka doorashada dhacday ee codka la dhiibtay habeenkii daamiyaan joogay marka qaab fikirkiina laftirkiina ku saleeya waxa dadka ay rabaan ma maasantiin